السلام عليكم. عشركان وعشركي aad wada sugayseen oo in aan xayisiintii sameyno. marka xayisiintan waxay noqon doontaa xayisiin aan ugu talagalnay in aan ku creeno anagoo isticmaalayno website-kan. marka waxaan tusi doonaa cashiro dambe oo ku xigi doona oo aad isticmaalaysa WhatsApp-kaaga aan u baahnayn website haddii aan website lahayn. marka soo dhawaaw. marka waxaan maleynaa inaad garanaysiin kulligiin oo hadda aad la soo qabsateenba sida xayisiin loo create gareeyo. marka waxaan rabaa inaan xayisiintiis la sameyno kadibna aan videogii aan ugu talagalay isla share gareyno oo macnaha isla wada fiirino kabacdina aan isla fiirino qaabkii aad koobiga ama qoraalka iyo waxaas oo dhan si isku wada qori lahayn ama waxaan iskula sameyn lahayn. marka soo dhawaada. marka create haddaan ku dhufto marka xayisiinta waxay noqon doontaa conversion maadaama aan pixelkii aan sameysanay oo cashiradii pixelka haddii aadan xasuusan ku laabo si fiican usoo fahmi. markii haddiina aan pixel lahayn cashirkaas macnaha conversion samayn kartid oo muku ogolaanayo waa inaad pixel haysatid oo website-kaagu oo macnaha pixel haystaa sida haddii aan kutuso oo kale website-ka daimaan oo kale meeshii aan pixel kaga fiirin oo kale pixelkeena dookana page view haysanaa. haddii aan hadda ku qoro kale maxamed shaafici number aan ku qoro qof markii uu meeshaan soo galo kale oo meeshaas ku dhufto greenka ah naftigeedana waa taraagreynunaa oo macnaha waxaan ka dhigonaa in uu wax soo diray. haddii fiirisoo kale hadda meeshan waxaa ugu qoran diiwaan gashan anaa ugu qoray. okay. marka haddii aan tagno meesha xayisiintaan ka sameynaynay so create ku dhufo cashirada ku xigi doono kulleyba waxay noqon doonaan engagement ama traffic. marka hadda waxaan sameynaynaa conversion so continue. marka waxba mabubsiinayay waxna aad nusii sharaxayay sababto waa fahamsan tahay waxa meesha aan joogno iyo waxaan sameynayno. campaignkeena ayaa magac ula baxaynaa hadda. marka waxaan rabaa inaan u bixiyo danta aan leeyahay iyo macnaha waxay tahay waxaas ayaan u magac daraa si macnaha hadhowta aan xasuusto oo kale. hadda haddii aan dhaho kale jabron kan oo kale wuxuu ahay page like soo ahay fioro. marka waxaan sameynaynaa jabron hadda waxaan sameynaynaa conversion conversion maybe leads. so jabron conversion aan bixishay next aan dhihi karaa ama wax ku dhufa karaa xaggaan labada mid aragtid samayn kartaa. marka hadda campaignki magaciisii kor ugu yaalaa adsetska levelkan joogaa. marka adsetka hadda sameynaa so marka haddii aragtid marka website meeshaan website aad dooranaysaa. haddii aragtid whatsappna whatsapp aad dooranaysaa laakiin whatsappka waa inuu macnaha pagekaaga uu leeyahay inuu whatsapp kugu xiran yahay. haddii meeshaan aad fiirisinna ina macnaha couple of weeks camal aad sugto waayo in uu pagekaaga uu whatsapp yeeshto. marka haddii hadda aan fiirino pagekeena inuu whatsapp leeyahay wax ka waa kartaa. pagekeena hadda aan aniga samaysano wuxuu jiraa less than 2 weeks saan jeclahay oo waa kana jabron online. marka umaleymaa inuu leeyahay maxaa ka waa kartaa setting oo kale markaa tagtid kadibna aad ku dhufatid meeshaan inuu hoostan kasoo baxeed oo hadda whatsapp maysano laakiin page whatsapp leh oo kale haddii aan fiirino. hadda hadee fiirisid pagekan oo maxamed shaafici profilekeyga kadibna aan ku dhufano kan setting kadib u arki kartaa whatsapp uu leeyahay kan kaas wax yar uu ka wen yahay. that's why marka waxay qaadanayaan adiga couple of weeks maybe 4 weeks inuu pageka macnaha jiro 4 weeks kadib ayaa waxyaaba qaar oo macnaha whatsappka ku saabsan oo kale helaysaa. marka hadda aniga website aan sameynaynaa cashirka ku xigi doona aymal ayaan ku sameyn doonaa whatsapp. marka hadda waxaanu weydiinaa marka pixelkii waa very important pixelkaas inay macnaha kugu jirto pageka. so marka hadda pixelka waa kana pixelka jabron aan bixinay waxaa xasuusistiin kadibna conversion event ku rabaa. eventkina waxaan sameynay page view haddii aad xasuusitid oo page content ahaad iyo leads. marka maadaama aan leads sabna leads aan ku dhufanaynaa. so marka hoos soo dego kadib waxaan sameynaynaa budgetka iyo scheduleka. so mar walba ogaa lifetime uu ka ahaanin ha ku ahaada daily. marka adiga qiimaha aragti ku qoro haddii dollar aragtid haddii $2 aragtid waxa aad doonto ku qoro. haddii pound ay tahay haddii sterling waxay lacagta ay markaas tahay oo business accountkaaga markii aad sameysanaysa aad default ahaan aad u samaysay. so one pound ku fiirinaynaa testing waayo. marka waxaan rabaa inaan video test gareyno
video kale haddii aan samayn karana aan fiiriyo kadibna aan macnaha wax different aan isla testi gareyno oo kala nooc ah. So marka waxaa soo hartay waqtiga ay ku bilaabanayso. Mar walba ogaaw haddii ay tahay oo kale hadda aniga waqtiga aan joogno waa iska galbihii, marka saacadda inaan bilaabo oo midnight waxba kama harin, marka waqti yar haystaa. Marka waxaan isku dayaa inaan berri ka dhigto oo waqtiga aan aniga jeclahay oo mar walba xayeysiin kasta markaan qiimeynayo aan bilaabana waxaa waaye 3 o'clock oo subaxdii. 12 waa taragelay kartaa oo midnight 00 ka dhigi kartaa, laakiin adig kugu xiran tahay meeshan oo waqtiga ay dhammaanayso. haddii rabtid waqti hebel inay ku dhamaato waa setgalay kartaa, haddii rabtid waa iska dhaafi kartaa. aniga waa iska dhaafaa sababtoo ah xayeysiinta macnaha meesha markan aan analyze garaynayo oo 24 hours ay joogto ama 48 hours ayaan marka analyze garanayo ayaan go'aan ka gaaraa inaan macnaha iska damiyo iyo inay sii daahnaatee. marka mar walbana ogaa xayeysiin haddii aad samayso waa inaad sugtaa at least 48 hours. markay ugu yar tahay 24 hours waa iska 50-50, macnaha ma ogaa kariyo Facebook data enough amaysayo. marka adi markaas waxaa degdeg inta ku gasho go'aan waxaa ku degdegtaa iska gaaray. marka waxaa fiicana 48 hours aad sugtid kadib waxaa ogaa karaysaa markaas inuu macnaha shaqeynaysa xayeysiintan. because marka adigana xayeysiinaad samaynaysid 100% mar walba ogaaw xayeysiin marka samaynaysid inaad least soo diyaarsato 2 video haddii ugu yartaa waaye. marka 3 video waa enough, laakiin 2 video waa markii kugu yartaa. 1 video ha try garaynin sababtoo ah 1 video markaad samaynaysid ma kala ogaa kartid cilada meesha ka jirto. ma videoga qaldan, ma qoraalka aad qorta meesha si fiican u shaqeynaynin, ma productga xayeysiinaysid ma qaldan, website-ka dadka u diraysid xoogo slow ah. marka waxyaabahaas oo dhan ma kala ogaa kartid because 1 video haysataa. marka xoogo space enough macnaha room oo macnaha wax go'aan ku gaartid maysatid. so marka haddii audience-ka fiirisid, hadda kahor audience aan create gareynaa jirtay oo aan isla sameynay oo ahayeen kuwa macnaha aan ugu talagalna marka website-ka imaadaan. marka haddii aad fiirisid sidoo kale ujeedaa leadskii last 3 days audience-kaas ma aha hadda audience-kaan rabno. aniga audience-kaan rabno waa inaan ka doorana meeshan. so marka location dadka meesha degan ha ku ahaato talabaad mar walba, kadibna xagan ku dhufo ka saar, kadibna wadanka aad rabtid, meesha aad rabtid, areada aad rabtid. so haddii aad rabtid oo kale xaafad adiga kuu gaar ah haddaan fiirin oo kale meesha hadda waxaa ku qoran Masjid Albarako. waa xaafad ku taala Muqdisho badan galmudug. I don't even know if the Facebook oo xasuusta meeshan diyaaradahan oo kale Black Sea waxaa qaldan sometimes oo qorayna qaldan laga, laakiin areada macnaha ama degmada markaas aad isleedahay degmo waaye oo magacaas ama degmadaas haddii qofkaa soo waco kale waad cover garay kartaa isleedoo kale ayaad macnaha inta ku qortid aad kadib fiiri kartaa. marka anaga hadda maadaama aan rabno Soomaaliya weliba Banaadir, because haddii dad oo macnaha guri loo iibinayo ama soo wactamaan oo kale waxaan u talagalay asxaab meesha joogto kale inay dadkaas caawiyaan. marka waxaan sameynayna bas meel oo qof dad aan ka gelinin macnaha ma rabo inaan dad aan nambaradooda inta soo diraan ayagoo qaylinaya dhaan aaway gurigan iibinaysin ama nafiraysin. marka waxaan rabaa marka Banaadir meesha ku qoro kale Banaadir Soomaaliya. waxaa fiiri kartaa meesha markii aad joogtid oo kale waxaa fiiri kartaa exactly meesha macnaha aad rabtid oo kale. haddii afgooy aad rabtid oo kale, haddii meel adig oo ku qaas aad rabtid meesha aad ka rabtid oo kale binka ku drop garay kartaa. marka ku dhufatid binka meeshaas macnaha dhigi kartaa meeshaasaan rabaa. okay age-ka dad guryo loo karinayo kulleyba waa iska qiyaasi kartaa. waa dad guryo haysta guryo iska iibinayo. so 18 years qof jiro I don't think inuu guri iska iibinayo ama guri haysto. marka
waa laga yaabaa in macnaha ay hooyadeed oo kale guri inay keliisata rabto oo kale ayagoo Facebook ku jira arkaan ay kula soo xiriiraan ama waalidkooda. marka aniga waxaan leenahay adiga 25 wixii ka bilowda ilaa 65. meeshaan ay reach ku qoran tahay expandkan meeshaan ka saar antigdhe, sababtoo ay Facebook macnaha wuxuu gelinayaa reachka ama dadka gaaraysid oo badinaa. ama haddaad 660 meesha ka tahay haddii aan ku dhufano oo kale markii aad tahay waxaad dhinaa 660. marka waxaan sameynaynaa meeshaan inaan ku qorno detail targeting, dadkaan target garaynayno. marka haddii aad xasuusatid servicekaaga ayay ku xiran tahay. service qaar waxaa jiro oo Facebook aadna ka helaynin, laakiinse service u dhow aad ka helaysid. marka haddii waxa aad gelaysid ay yihiin oo kale dentist oo kale dental iyo waxaas waa baari kartaa. haddaa tahay fundi oo guryaha dhiso oo kale macnaha builders iyo home improvement iyo interior design property waxyaabaas. real estate obviously hadda meesha aan wax raadinin oo iska real estate ama state agent ama latin agent iyo wax noocaasa. marka haddii aad iibinaysidna macnaha waxaad dhihi kartaa oo kale online shoppers oo kale ama online oo kale dadka macnaha online wax ka iibsado oo kale fashionka oo kale qofkii macnaha waxa adiga markaas aad iibinaysid haddii alaab waxyaaba ka lagu caddeed white thief wine oo kale ku qori kartaa. marka adiga waxay kugu xiran tahay haddii marka adiga xataa aad ku wareerto wax meesha ku qoran oo kale google aad tagtaa translate ku dhufato kadibna aad macnaha wordka meesha aad rabtido aad kusoo qori kartaa kadibna soo english meesha geli kartaa wax u dhow. marka dambe waa helaysaa targetka raadinaysid. okay marka hadda aniga maadaama real estate rabno waxaan qoraa meeshaan real estate. sorry real estate broker, investor development. okay contact, buying and selling real estate. marka waxaa fiirinaysaa maadaama Soomaaliya ay tahay meesha oo macnaha Facebook una enough data una keenin, waxaa laga yaabaa in macnaha reachka iska yaraato. so hadda ujeedin dadka aan macnaha gaari doono waa wax ka yar 1000 maadaama aan isticmaalnay interest noocan. so markii saas u yarto kale waa imaanaysaa suggestions kana ku dhufanaysaa kadibna wixii adiga markaas isla egyahay oo isku wada mid waxaan oo dhan waa isku dhow yihiin macnaha ma fahamtay. marka midka adigaas leedahay kaas oo kale kan oo kale hadda waa brand name. so kan oo kale waa khatar ama waa fiican yahay haddii aad America oo kale wax ku xayeysiinaysid because waa company American. marka adiga waxaad markaas target garay kartaa waa haddii haddaan ku qoro oo adiga brand oo macnaha isto magaca weyn oo Facebook magac kule oo kale haddii ku qortid oo kale waa laga yaabaa inaad soo qabto ama oo macnaha interessant ku noqoto ama page oo kale direct soo kale qoraayo laakiin ma soo saarayo. so marka suggestions kana fiirinaa kadibna investing kaas oo kana fiirinaa reachka isha ku haaye hadda 3000 ku dhacay. property so property ku dhufo reach enough in helna malena property ku dhufan because property waa macnaha waa dalag weyn waa. so hadda property kaas oo kala provide karnaa waxaan waa iska tirtiri karnaa meesha yara istiraafka bulshada. haddii aad rabtid inaad sii yaraysid oo macnaha aad isleedahay 100 waa too much, waxaan kugula talilahay mar walba waxaysiina sameynaysa at least 80,000 inay ku tahay meeshaan. dadka aad target garaynaysid iyo waxa targetingkaaga inay isku dhow yihiin at least hadda macnaha ay isku dhow yihiin. hadda marka Facebook Soomaaliya banaadir dadka jooga oo property xiiseynaya waxaas waa at least 1000 macnaha. so macnaha Facebook sheegaya. so haddii aan rabo inaan sii yarayo oo kale narrow down meesha narrow audience kan ku dhufanaa kadibna haddii hadda aan ku qoro kale engage shoppers oo kale haddaan ku qoro engage shoppers oo dadka oo macnaha badanaa engaged ku yani Facebook wax ka gataan oo kale reachkii waa yaraanaya. so marka 23,000 waaye meesha 100,000 ka marka haddaan ka saaro 100,000 kaas aan probeeyo waxaa laga yaabaa marka inaan helo dad ila soo xiriira oo loo guri noo iibiy ama naga kirey ama noo kireyba intaba.
so marka maadaama aan video isticmaalayno waxaan sameynaa videogaas waxaan rabaa inuu Facebook feed iyo Instagram feed kasoo baxo meel kale inuu kasoo baxo ma rabo inuu kasoo baxo meeshan oo marketplace-ka videoga iyo waxaas right column-ka meeshan geeskan iyo waxyaabahan oo dhan waa different places oo kasoo bixi kara waa marka placementiga aniga aan rabno waxa waaye in ay noqoto Facebook feed iyo Instagram feed labadaas mid bes so marka Facebook feed nagu dhaaf Instagram feed ku dhaaf inta kale dhan waa ka saaraa haddii aad rabtidna automatic ku dhaafi kartaa oo macnaha waad probay kartaa marka haddii aad is leedahay kana probay laba xayisiina samayn kartaa oo targetingka da'da locationka genderka dadka aad inaad ka iibisa aad rabtid waxa dhan isku mid yihiin oo midna aad placementiga aad ka dhigaysid manual midna aad ka dhigaysid automatic oo macnaha mid labadooda midna kana probayna midna kaas oo labadooda test barbar dhigto ayaad isku fiiri kartaa daatada midkii oo macnaha markaas wax la taaban kara ku keenayo meeshan maadaama anaga hadda aan conversion aan isticmaalayno waa ku dhaafi kartaan conversion haddii rabtidna waxaa ku dhaafi kartaa landing page view oo macnaha you can optimize ku samayn kartaa landing page viewgaas aad dooran kartaa haddii kalena conversionkaas oo Facebook recommended oo saarayo kale aad ku dhufo kartaa adiga labadaba waa probay wax weyn oo difference uma dhexeeyaan as long as xayisiintaada ay tahay 1010 aad koobigaaga 1010 yahay landing page-kaaga ama WhatsApp meesha waxaad diraysid labadaas haddii WhatsApp waxaad diraysid landing page inaad ka fikirtid maahan laakiin haddii landing page ama website aad diraysid landing page-kaas xayisiinta video haday tahay iyo haday image tahay iyo qoraalka meesha kugu qoran haddii waxa dhan ay isla shaqeynayaan ay isku theme ama isku macnaha isku dhow yihiin waxa dhan isku design maskax ahaan qoraalka fikirka ka dambeeya waxa dhan ay isku mid yihiin anigu macnaha kala mid jeclay midkii conversion data iyo haday tahaba landing page view so marka cashirkan waa sii dheeraanaya kolleyba cashirka ugu dheer oo noqon doonaa maleynayaa okay next marka haddii aragtid oo kale waxyaabaan soo baxbaxaaya faraha badan obviously waa page inaan doorano marka page-kaan dooranayno waa Jabron xayisiintiina magacana ula baxno so marka ani xayisiinta mar walba aan sameynayo waa saan idiin sheegay haddii ay tahay add copy one iyo video hal video haddaan haysto kale oon dhabcanayo video one ka dhigtaa marka waxaa laga yaabaa dhigto marka inaan video kale haysto oo meeshan aan video two ka dhigo oo labadaas video hal mar aan isla baroobeeyo hadda marka maadaama aan hal video hayo video kale oo kusoo daraa laakiin hadda hal video aan hayaa kadibna waan iska fiirinaynaa video kale inaan samayn karayo okay meesha markaad joogtid marka hadda waxaa u baahan tahay haddii oo sida macnaha hadda aniga kulley aniga waxaan isticmaalaynaa single image oo video aan isticmaalaynaa kuwan labadan kale oo ku fargalay doonaa cashiro kalena ayaan ku sharxi doonaa marka media toos u imaanaysaa kadib waxaan leenahay video ku dar kadib upload kadib waxaan tegaynaa video aan raadsanaynaa marka okay waxay yusuf okay videogan waayo waa kan okay Jabron marka videogan ayaan rabaa inaan isla daawano oo aan idin daaro kadibna aan macnaha dantaan ka leeyahay iyo laakiin dhib male waxaan ku fiirsanaynaa marka xayisiintaan sameeyo dhib male mafaada so hadda marka videogu wuu noo socdaa waxaa jirta meel aan ka downloadto waxyaabaha aan u baahanahay oo kale haddii noqoto because hadda waxaan u baahanahay wax la yidhaaho thumbnail hadda thumbnailkan waa ku dhaafi karnaa oo macnaha qaabka u soo baxay waa qaab qurxoon ani hadda waa videoga aan sameeya wuxuu ahay video oo YouTube aan kasoo qaatay oo cod saaray marka maadaama uusan sharxadas u yahay waxaas meesha ka muuqda ayaa hadda thumbnail oo macnaha aan barobay kara waa happy-aan ku ah laakiin haddii aad dhakhtar tahay oo aad islaan aad daaweysay video kusoo duubatay oo ayadii meesha fadhida aad rabtid inaad thumbnail ka dhigatid waxaa markaas qaali kugu noqonayo cost per click-ga ama CTR-kaaga low noqonayso markii oo click through rate-ka ay low noqotana
cost per click-gaaga wuxuu noqonaa high cirka gelaya. Cost per click waxaa ka wadaa in qof oo click dhaho kale xoogo qaali kugu noqonayso. Marka haddii qof oo click dhaho kale oo 20 cent aad bixinaysid ama 25 cent aad bixinaysid amar qof oo click dhaho waxa waaye xoogo qaali waaye because 5 qof markuu dhufto $1 ka baxa camal. maadaama conversionka uu ka qaalisan yahay qaabka kale oo macnaha xayisiin lagu sameeyo. Conversionka waa meesha ugu qaalisan. That's why conversionka hataa Facebook waa meesha ugu badan ay lacagta ka sameeyaan oo e-commerce because dadka ay gaarsiinayaan wuxuu yahay dad oo 90% dad ayaga isleeyihiin macnaha xayisiinta qofkan waxbuu gadanaya ay isleeyihiin. dadkaas waa dadkay macnaha xayisiintada tusayaan. laakiin markay post engagement ay tahay ama traffic ay tahay oo kale dadka ay tusayaan ma dad xoogo quality oo macnaha ay markaas ayaga bokodyo kala nooc ay leeyihiin. marka bokodyada oo dadka waaweynka ay ku jiraan oo kale conversion oo macnaha wax gataan wax iibsadaan ku tashtaan oo macnaha dadkaas oo kale. maadaama marka anaga dadkaas aan ku optimize garaynayn xayisiinteena rabno dadkaas inaan tusno waxa waaye dadkaas marka dad xoogo raqiis ama waa dad qaaliye saas inaa u fiiriso. marka bokodyo kala nooca jeebka koowaad waxa waaye kaba soo qaado waa iska traffic, jeebka labaad post engagement, jeebka saddexaad waa conversion. marka jeebka saddexaad maadaama anaga rabno inaan conversionka aan target garayno qaali bay nagu noqonaysaa. marka ayadoo ognahay inay qaali tahay laakiin dadka la tusi doona yihiin dad oo u badan tahay inay wax iibsanayaan waxaa haddana shaqadayna tahay in aan waxaan tuseyno iyo qaabkan u tuseyno oo approach garaynayno inaan kasoo shaqeyno inaan iskaga tuurnamaa. marka I hope ina fahamta intaas. okay marka hadda meeshan waa inaan ku qoraa primary tags inaan ad copyga ku qorno kadibna aan meeshan headline fiican aan ku qorano kabacdina description yar meeshan ku qorno kadibna website-keena gashano kabacdina aan fiirino website-ka pixelka hadday tahay ay green ay noo tahay oo macnaha ay fire garaynayso. so kabacdina waxaan sameynaya haddii aad sidoo kale thumbnailkan inaa bedeshid meeshan oo hadda thumbnailka meeshan waaye thumbnailkan aan ka wadaa meesha wax ka muuqda. haddii rabti marka inaad bedeshid oo kale cashirkaas inaan hadda ka horgareyno mar kale inaan ka horgareeyo waa hadda iska dhaaf. laakiin haddii aad rabti inaad sameysid waa inuu ahaadaa imageka aad soo diyaarsanaysid sizekiis inuu ku aado 1080 by 1080. meesha ka bedelaysidna waxaa ku dhufanaysaa xaggan edit video ayaa ku dhufanaysaa kadibna waxaad tegaysaa marka edit video ku dhufatid meeshaan ayuu ku keenaa. hadda marka waxa uu hadda noo hayo inta uu noo hayo hadda intaan waaye. so hadda haddii aan ku dhufto kanoo kale ama kanoo kale haddii laakiin aan mid soo diyaarsadoo kale meeshaan aan tagaa thumbnail ay ku oran tahay kadib manualkan ku dhufanaa meeshaan kabacdi upload aan leeyahay. marka upload dhaho haddii aad rabtid intaadna upload dhihinna oo macnaha aad rabtid kuwa mid kamid inaad dooratid oo kale hadda video way kamid yihiin midka adiga markaas isleedaha kana waxooga ugu fiican ama ugu qorxan ama isleedaha markaas aad dooran kartaa. so hadda kan haddaan fiirino ama kan aan fiirino waxaa laga yaabaa inuu macnaha xoogo yani kan aan doorana haddii aan wax ka doora lahay kulligood macnaha kan aan doora lahay. so marka haddii laakiin aad rabtid mid adiga aad soo diyaarsatay inaad gashatay meeshaan ku dhufanaysa upload. so hadda imageyadii aan diyaarsanay hadda kor waa kuwanaa kan oo kale kamida marka 1080 by 1080 inuu ahaado waaye. so marka haddii aad ku dhufano kan kadib continue aan leedahay marka continue dhaadid hadda kan haddaan ku dhufto haddii kan aan baroobayno waa isla baroobaynaynaa oo same video aan isticmaalaa oo video aan dib aan u sameynaa laakiin midna waxaan baroobaynaa thumbnailkan midna waxaan baroobaynaa thumbnailka oo asiga video haddii marka aad rabtid inaad ka bedeshid oo thumbnailka adiga aad rabtid inaad isticmaasha aad rabtid oo kale edit video taabanaysaa. haddii aad video inaad iska bedeshid rabtidna video markaas waa iska bedelaysaa. so hadda maadaama kan oo noo saaran yahay waxaan taabanaynaa kan laba video aan sameynaynaa oo isku hal video laakiin midna thumbnailkan ka bedelaa midna ma ka bedelaay oo thumbnailka meesha ku jiraan aan saaraa marka isku fiirinaynaa. okay marka hadda waxaan joognaa meeshii oo macmacaanka lagu qorayay marka macmacaanka oo hadda kora meesha ku qorto kale waxaa xasuustaa Facebook geeskan ku soo baxay laakiin waxaan ku qorayna meesha. waxaan rabaa marka inaan wax yar oo qaabkii aan u qori lahayn iyo inaan isla fiirino oo u fiican. kooda hore cashiradii kale haddaa xasuustid waa inaan isbaara dhigano sadaka koobaad
sadarka ku xigo waa inaan ka hadalno wax yar oo waxa aan ku saabsan servicekeena. sadarka saddexaad waa inuu ahaado benefit ama faa'iido. sadarka afraadna inuu macnaha ahaado wax yar oo ku saabsan about the business. haddaa rabtidna su-aal ka jawaab, haddaa rabtid more benefit ka sheekay, haddaa rabtidna laakiin sadarka afraad ama lineka afraad inuu ku ahaado haddii wax kala haweysan urgency, ama inaad xoogo deg qofka aad degdeg ku abuurtid oo dhaadid hadda kasoo gaar, waa macnaha arrinta ma fiicna camal. ku dhufo hadda linkiga call to action iyo urgency isla socda camal inaa meesha aad ku samaysid lineka afraad. so hadda marka lineka koowaad markaan marayno, badanaa aniga waxaan isticmaalaa tax si macnaha qoraalka uuna qoraal xooga waaweyn. hadda Facebook way ogol yihiin, laakiin futureka la yaclam inay macnaha diidaan laga yaabaa. so marka qoraalkaaga waa in isbaara ahaadaa. so marka isbaaradaas waa inay ahaataa isbaaro adiga iska macquula. marka waxaan leeyaynaa oo kale ma rabo inaan macnaha aad sugtiid. marka waxaan sameynaa waxaan ka fikiraa kadibna waa nila wadaagaa. okay asxaabta soo dhawaada. wax yar aan macnaha aan boos saaray because sababta ma rabin inta wax ku qoray inaad macnaha waqtiga kasii dilo. okay marka waxaan meeshan ku qoray qoraalka koobaad waxaan ka dhigay weli guryaha afka lagu kireeya. okay marka guryaha afka lagu kireeyaan ka wadaa. so marka haddii aan ku laabto meeshan ku qoray macnaha qoraalka aan qoraayo inaad fahamtaan rabaa bis. that's why aan kula wadaagayaa weli guryaha afka lagu kireeyaa. waxaan rabaa bis inuu qofka marka uu arko oo macnaha asiga su-aal isweydiiyo oo maxaa ka hadlowsaa camal. intaas waa macnaha isbaarada dantaan ka leeyahay. inuu macnaha qofka oo asiga uu talking about camal afkiisa ama niida uu iska dhaha bis, wax kale maaha. weli guryaha afka lagu kireeyaa. marka kadib waxaan ku qoray meesha waxa ay tahay. marka haddii aad xasuusato isbaaro waxa aad gelaysid maxay yihiin, maxaa ka hadlowsaa ama maxay tahay what is. so marka waxaan ku qoray meesha kamid noqo kuwa guryahooda ku kireeya waqti kooban degdeg. kadib meeshan ku qoran okay marka haddii aad fiirisid waa maxay kadibna benefit yar degdeg danaaga ku gaar ku gurigaaga si online ah, natiijooyin degdeg ah. so basically wax yaroo adiga benefits waaya. kadibna meeshaan ku qoro wax yaroo adiga jaburan waxay tahay iyo qofkii geliyo urgency. kadibna meeshaan ku qoro link oo riix xaggaas. so marka haddii linkiga aan soo samaysano, linkiga waa kan. waxaa laga yaabaa linkigaaga inuu dheer yahay. haddii uu linkigaaga intaan ka dheer yahay waxaad tegi kartaa meeshan ay ku qoran tahay bit.ly oo kale. meeshan ayaad tegi kartaa kadibna linkigaaga meeshan copy ayaad ku dhehaysaa. kabacdina shorten aan leedahay, kabacdina intaas buu dhakaanaya, kabacdina copy ayaa ku dhufanaysaa. kadib haddii aad rabtid meeshana ku paste garaynaysaa. so waxaan jeclaa marka aniga markaan sameynayo inaan laba link haysto. linki oo xagan ku xigo oo benefitka ka hooseeya iyo link ka hooseeya meesha oo degdegta iyo qofka call to actionka ugu dambeeya. so marka haddii linkigeena aan soo qaadana marka bas waxaan rabaa inaan website ku isticmaalo. meeshan URL ku qoran tahay URL-kan ku dhufto kadib geliyo meeshaanna waa meesha ka fiirinaysa xayeysiintaada iyo qaabka usoo baxayso. so marka waxaan u artay meesha call to actionka inaan ku qorno. aniga badanaa call to action meeshan oo macnaha sorry headlineka waxaan ku qoraa companyga magaciisa iyo waxa uu sameeyo oo kale. waxa uu sameeyaan ku qoraa. so crane ama iibin oo kale aan ku qoraa. so haddii aan dhaho kale kadibna waxaan saaraa farta oo nagu tilmaamaya qofka geeska ku dhufo aan leeyahay.
so waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysid emojis iyo xageen ka helaa. Google ku qori kartaa haddii aad computer oo isticmaalaysid oo PC ah ama kan kale. hadda Mac isticmaalaysid waxaad dhigi kartaa control command kabacdina space isku taabanaysaa hal mar saacad kabacdina kaarada ku gashanaysaa. so marka meeshaas ayaan qofka macnaha u tilmaamayaa oo waxaan rabaa meeshaas inuu xaggaas ku dhufto kadibna description yar meesha ku qoraysaa oo hoostaas kasoo bixi doona. marka waxaan leeyahay oo kale wax yar adiga jeeb from waa Bob Yaha okay marka way dhamaatay hadda wax noo hara ma jiraan. so haddii marka aad rabtid meeshaan imaanaysaa oo meesha isha ku qoranta reviewga kadib waxaad rabtaa inaad fiirisid waxa aad samaysa xayisiintaada si taalo meeshaan ka fiiri intaadna macnaha aadna publish aadna dhihin aadna dirin si macnaha uga egtahay. meeshaan ku qoran karayn ama iibin haddii kale waxaan ka dhigi karaa oo kale fududeynta iibinta ama karaynta ama macnaha waxa aan sameynayo oo shirkadda ay sameynayso ayaa macnaha ku qoraa. so haddii aan hadda ku bedelo oo karaynta iyo iibinta aan ka dhigo qoraalka markii aad macnaha reviewan aad ku dhufato kadibna aad isha ku fiiriso agoo maskaxdaada ba isbedelaya si kale wax u arkay kadibna waxbaa bedelaysaa. so weli ma guriyaa afka lagu kirayaa kadibna jabron degdeg. so copy intaas leewabis. haddii aad rabtid inaad macnaha different view ku fiiriso desktop oo kale meesha mobile news qoranta oo kale feedkana waxaad bedelaysaa desktop feed. so hadda wuxuu isku bedelaa sida guriga oo kale. so hadda videogan isla daawanaynaa marka video isla daawano kadibna waa publish garaynayna insha Allah taala.